وعليكم السلام وعليكم السلام. فيصل. يا soo dhawaada soo dhawaada, asalaamu calaykum dhammaan, ciid mubaarak. soo dhawaada soo dhawaada, Papa, ciid mubaarak idin. Papa, alltså jag gjorde sådär i Ja. sak. jag vet men jag håller på att sända live nu så vi kan ta det sen. Jalla. ciid mubaarak, ciid mubaarak. Abdurahmaan brother, soo dhow. ciid mubaarak, ciid mubaarak asxaabta, la famille, intana sugaysa iyo inta kaleba. xasugaa beka nin waalan, soo dhow adiguna. xasarad shaydaankii ugu horreeyay lasoo daayadniyo ono inaad kamid tahay aan ka shakiyeyba. deja saaka waxaad ku bilow dadka inaad qabsatid. abeka ummadda nabad sii, ilaahay maaragtay ka baqo, ummadda nabadgeli. sino saba la famille baan umalayaa, aad baan kusoo salaamayaa xasugaa beka. soo dhow macooyo, ciid mubaarak. war soo dhawaada, inaan wax badan nigu sii jiraan uguma talagelin. ombloytonga iska shaarjiyay waa ciid saad arkaysiinba. se waxa weeye waxaan maalmahan oo dhan baan doonayna inaan shaaca ka qaadno ambaan ummadda soo hordhigno, oo ay kamid tahay raisonga ay ku dhacday inaan maaragtay aan shakhsiyaddeeda warsamo ahaan xilkii aan hayay ambaan mouvement u hayay aan ka tago, iyo wixii maaragtay ku shaqo lahaa arrinka. inkastoo dad badan ay dee isku camiraan, ay sheekooyin kaleeto ay ka sheekeeyeen, xaqiiqda annakii ilaahay baa og. marka saa daraaddeed waxaan doonaya inaan baddan ii soo dhigo waxaa jira dhanka doontiinba marka idinku had u rogtiin. de toute façon saad toos u arkaysiinba waxa weeye facebookeygii priveygii warsamo loor ay ku qoran tahay ayaan kasoo galay. pagena maaha, meel kalena maaha. movementgii dee caada ahaan ood u barateen inaan kasoo wada galno. war baa ka yimiday, warka ka yimiday anaa niga dharginaya insha allah. soo dhawaada, ciid mubaarak. bisha rabadaan de waxaan la aamusnay kolley waa waad wada ogtiin baan umalayaa, waa caadaan iska leenahay wey. on intaasoo sanaba aan soo sameyneynay inaan maaragtay aan ka yarnasano waxoogaa liveka, inkastoo aan u xiisnay oo goormaad gali layswa lahaa. haddana waxa weeye ma garanaysaa marka qaarkood waxaa loo baahan yahay in la ixtiraamo bisha rabadaan, oo qasabade oo maaragtay cibaadada iska wadatid iyo howlaha ayaa kaleete ajarkaad iska yar urursatid. inkastoo dembigu nagu badan yahay, aad ajarka iska yar urursatid, maalinta ciidana maaragtay aad iska soo xidhatid dee amba beyaashees amba dee khamiisdaydoo kaleeto aad iska yar ciidid. marka waxa weeye horta ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan rag iyo dumar, inta aqoon noole, intana garanaysa, inta maaragtay sheedaa nagala socota, amiga facebooka, intii baashkeenii hore dee nagu taqaanay, mouvement ahaan nagu taqaanay, inta kale ummatul muslim oo dhan wixiina fahmaysa oo dhan, meel wada joogtiin horta aad iyo aad baan iisoo salaamayaa. waa xagga ismaaciil markeele waa nii xiisaana horta mareedda khalbeed wuxuu ku yidhi astafurullah, ya waa nii xiisay buu yidhi. waa xaggiya, waa nii xiisay, aniguna waa nii xiisay. bisha rabadaan baa dee neerkala haysay, marka waxa weeye alxamdulilah si fiican bay nagu dhaaftay. maanta waan ciidaynaa. dee waa runoo xiisa un maahane lifekana maaragtay balaayo waa dad baratid waa khalaas. imika waxa waan veteran oo kaleeto si waxaan isleeyahay niyo bulu hadal kaa khaldan, oo anigaygi baa control ku jira. waxa weeye ciid mubaarak, ciid mubaarak.
amba barbaa feedhaha isku geynee aan la yaabin haddaan maanta biyaha iska cabno waxa weeyaan laba shay baan usoo galay horta inaan kafta kuwa xaggiisa laba shay baan usoo galay maanta ciid mubaarak dee iyadoo qoraalaba dee waan soo dhigo niga badan ba waxa weeye labada shay aan usoo galay aan doonaya inaan ummadaan soo aan la wadaago waxa weeye midi canjaladeydii ugu dambeysay aan maaragtay aan ka hadlayay dee waxyaalo badan mucaaradka oo dhan activistyada kitaabkaasaan isku soo wada duubay oo aan idhi ma garanaysaa nacam dee waan fashil baan taaganahay hadday warsamo tahay iyo hadday dee mucaarad oo dhan iyo activistya ay tahay inaan taa dib ugu yar noqdaan rabay kow ta labaad waxaan nii macnayn doonaa raisonga amba maaragtay macnaha aan uga tegay movementka in xilkan u dhigay labadaa shay baan doonaya insha allah waqti yaroo kooban aan nii dul maro oon maaragtay ka baxo insha allah marka dad koobaad haddaan ku noqdo canjaladeedii ugu dambeysay rabadaan intaan naamusnaa ka hor rabaanta ka hor astafurlah waxa aan idhi waana ku celinayaa oo nacam hadalkayga ka noqon maayo waxay aan idhi siday dad badan u arkeen in badan oo uga jawaabay dee oo maaragtay aan u macneeyay ujeedadan ka lahaa hadalkayga iyo maxaa la yidhahday inaan de mar aan toos ummadda ugu macneeyo waxaan afkayga ka idhi bay ahayd asiya papa يلا يلا يا سن اوكي هاي اوكي سن وليا الهي يقان رالي هذا waxa weeye waa carruurtii waxa aan afkay ka idhi bay ahayd haddaanan khaldamayn in mucaaradku fashil yahay annakana ahaatee amba warsam ahaanteeda ba ahaatee inay fashiltaan idhi ahayd waxaan u idhi macna ahaan waxay ahayd inay de laysku noqdo faraska waxa uu shaloola dhacaabay Soomaaliya tiraahdaa in fardaha kala ka badiyo Soomaa marka marnaba aan horta cayiga ma hayn mucaarad oo dhan day cayiga ma geeyay badiyo la isku walahin baba xumana igama haynaysa waxay iga ahayd si hadii loo eego dhinacam bal meel uun ka bush gareeyo si uun dad dadku ha u dhaqaaqaan oo fikradan aan hayno maanta fikiro ka duwan amba fikiro maaragtay caafimaad qabada oo wax bedilaya amba hore u socodsiinaya hala keeno donc intii khaladka ii fahantay horta maalintaas amba sida kale ii fahantayba waxaan leeyahay horta waa raaligelin weeyey macnaheeduna aniga shakhsiyaddeeda saa buu ahaa taasaan nugala jeeday maantana hadal aan ka noqonaya maaha oo waa loo baahan yahay maxaa la yidhahdaa dib u habeyn iyo dee nacam wax bedilaad dhexdeenna inaan wax ka bedilno because haddii waxbay naga khaldanayn innaka dhexdeenna waxbaan gaari lahayn meel umaan gaari lahayn waxun baan dhaqaajin lahayn waxa cad inuu maaragtay meel aan ka yar maaragtay laan garaynayno meel uu wax naga khaldan yahay hadday system tahay hadday wax wadaag tahay hadday fikir isku biirsi tahay hadday in lasgarab istaago kaleeto walaalka ay tahay waxbaa inaga khaldan anyway marka waxaa loo baahan yahay maxaa la yidhahday aqoon-yahanadeenna musheekhdeenna sharafta leh anoona soo koobay magacooda midnimadu kala sheegi karayn madaxda partiyada kala duwan mucaaradka oo dhan inay maskaxda isgeliyaan baa loo baahan yahay midnimana way tahay oo dad isku yimaadaan waa dad midoobeen iyo noqonaysaa ta kale haddii maskaxda la isku darsado kay ka soo baxayso wixii uu maaragtay khayrku noogu jiray wax ku kala dhaqaaqi lahaa lama ogo marka waa change d'idée waa in la yar wada fadhiisto la wada hadlo dhalinyarta kadaalika activistyada amba dadka kaleete facebook live-yada sameeyo o dhan kadaalika marka ani taasay maaragtay aan rajaynayaa insha allah waana maalin ciideed weeyaano ducooyinku iska socdaan baan u malayahay intaan noolna ilah wataan nasuus baan taaganayaano odayadii mucaaradka oo dhan musheekhdeenna maaragtay oo dhan aqoon-yahanada reer jabuuti oo dhan oo ilaahay meel iskugu keenay oo u fikiraya war ninkan na haysta iyo xulufadiisa intaasoo sano iska kan haysata ee maaragtay doorashadii ka dhigay bakhtiyaa nasiib wey 98% adduunka laga maaray meel 98% nin uu ugu doortay kaaga daranka dadka dooranaya xaggee joogaan dadka dalka dhex degan haddayna ahayn waxa kale doortay maxay yihiin jimba jimka la xereeyey oo dhan rabaanta ismaaciil bay doorteen 98% uu kuleeyahay meelaha laga vooteeyo dalkoo dhanna meel laysku haysto oo laysku jiijiiday ma jirto saddex qof iyo afar qof iyo saaskii rool joogtay
isagaa isku soo camiray oo ciidankiisii oo dhan soo kaxaystay xilligu doorashada isaa isku riday weli darka soo kaxaystay ciidankiisii oo dhan say buuq loo arko kameramaani iyo dad aan jirin marka waxa weeyaan si in loo fikiraa loo baahan yahay ninkan ismahadiyey ee iskaga celceshanaya iyo xulufadiisa saan iskaga kaxayn lahayn in la isku wada imaado iyaan ilaahay ka rajaynayaano marka hadalkaygii dadkii khalad u fahmay hadday mucaarid yihiin hadday muxaafid yihiin waxay doonaan ba ahaadaan anyway macnihiisu waa kaa weeye ani taasay bilniya iga ahayd markaas waa kaa insha allah dhammaantood anoo wada salaamaya madaxdaas iyo musheekhdaas iyo aqoonyahanadaas reer Djibouti oo dhanba ciid mubaarag ilaahay maaragtay taas aan ugu soo hanuuniyo dhammaantiin waa loo baahan yahay waa de fikirkayga weeyaan haddii aan loo baahanin dee ninka ay macnayn kareen si anu waa fikirkaygu tuuleeyahay weeyaan waan rajaynayaa insha allah ta kale aan usoo noqonay arrinka labaad waxa weeye mouvement des patriotes djiboutiens sida aad kolleyba iska wada ogtihiin maalintii la asaasayey horta inta dee kaleetee gadaal nagaga soo beertay amba dee noo timid anoo baan sii gelinba maalintii la asaasayay anuu joogo horta kow waana run labaan ahayn aniga iyo walaalkii Fahmi Maxamed Cumar oo isagana ciid mubaarak leeyahay iyaa asaasnay oo de maaragtay maanta wuxuu yahay ka soo dhigay marka waxa maaragtay arrin baana dhex imiday arrinkaana dhex imidina waxa keenay walaalkeen Fahmi Maxamed Cumar baa keenay marka waa la wada fadhiistay waa la wada sheekaystay arrinkii de toute façon intaanan boodin inaan maaragtay u boodin de raison aan ku dimensionayba waxa weeye ma garanaysaa waxa timid meeshii dowladdan la hadlaynaa amba dowladdan la sheekaysanaynaa amba dowladdan wax kala heshiinaynaa ninba soo doona ha u fasiro anyway waxay ka dhigan tahay contact aad la qaadanaysid dowlad okay yaan nidhi waan sheekadii baan ka gurnay walaalkii Fahmi Maxamed Cumar kolley haddaan been sheegay isagoo nool yahay dharigii kaleete mouvement way wada nool yihiin waxaa la yidhi ma garanaysaa waxay noqotay inaan maaragtay aan tale ka qaado camdeen qaraar aan ka gaadhno inaan qaraar aan arrinkii aan ka gaadhnay noqotay walaalaha qaarkood way boodeen walaalaha qaarkood toos bay u boodeen xilligii arrinka maqleen waxaa yidhi walaalahayow deg deg uma fiicneen ani shakhsiyaddeedu inaan wax arkaan rabaa oon wax nacam dee son pref qof iskama qabsan karaysid ubiyaan dee wax laysoo hordhigo ubiyaan dee waxaan arko toosa walaalahayow deg deg joojiya sheekadii waxay noqotay inaan ani iyo intii kalete aan qasab aan wada fadhiisan haddana mar kalete oo la yidhaahdo mouvement-ga arrinkaas ba hadduu imiday waxa weeye ninkii keenay in qaraar isaga laga qaato waxay yidhi kolley aan madax xumaan meesha ka hay qaraarna keligii ma qaadan karee maskaxdiina isku wada darsada waxa aad ku soo fikirtiin aad soo goysiin ha lay keeno maya baa la yidhahdo inaad qaraar ka qaadatid waa sax waxaa yidhi kolley haddaad saa tirahdeen waa juus nin walba qaraarkiisa ha gaadho meel baan dhigaynaa walaalkiina waa loo geyn ani faahiye hadday tahay iyo namada kaleeto dhan waan wada sheekaysanay waxa ay sheekadii noqotay 100% in la yidhaahdo mouvement-gu jiritaankiisa amba horumarkiisu Fahmi oo jooga dukaanku leeyahay ditrum Fahmi Maxamed Cumar oo jooga socon maayo ayuu qaraarkii noqday in Fahmi Maxamed Cumarna mouvement-ga la yidhaahdo walaalkiiyow waxa weeyaan arrinkaas ay miday shikigaas ay miday dameer shiki iyo de maaragtay amin darri ay taalana waxa weeye qofkii wada shaqaysigiisii marna de nacmo ma soconaysaba qaraarkaas la yidhahdaa weli madaxweyne adaa toos ugu geyn baa la yidhi okay walaalkii waan la hadlay waan u bandhigay arrinkii saasaa la leeyahay saasay qaraarku uu ku soo go-ay intii uu de maaragtay de isaguna walla qofka ina dhageystay waan dhinaciisana moogtay uu dhinaciisa waan ka dhageystay si walba kor iyo hoos baan ugu sheegay waxaan ku yidhi saaxib Fahmiyo saasaa taalla inaad mouvement-gana aad ka baxdid yaa qaraar lagu gaadhaa kuwa yaaban dee warba nigu daaline
waxa ay noqotay fahmi maxamed cumar ma ka baxayo yidhi anigu dee nin baxaya nin sii socdana ma yihi okay hadday saa tahay waxa weeyaan dee waxaan anu gacanteeda kusoo dhisay inaan marnaba horta aan u horseedo burburkiisa diyaaru ma ahayn isagana life baan ugu yidhi dee haddaan been ka sheegay saan horeba usoo yidhi uu joogaa uu nool yahay uu dhegeysan doonaan cajaladda waxaan ku yidhi haddii ay saa tahay mamsuka ay aniga wax badan ay iga soo galeen mouvement aad arkaysid soo dhisitaankiisa kharash dhibaato waxay doonta baa noqoto waxaan ku yidhi intuu burburi lahaa weliba anoo joogo uu burburi lahaa marka waxay dhaantaan ku yidhi inaan adig kuu dhaafo ood mas-uuliyaddeeda totally aad haysatid maxay geed annaka mar walba horta haddaan pageka ka soo hadla mouvement iyo haddaan xaggaygan normaalka aan ka soo hadlaba waxa ay aan ku hadlayo waa afkaygi weeyaan wejigayguna waa kan yaalla weli meeshii marka waxay noqotay inaan anigu ku idhahdo saas fahmiyo anu taasaan inaad aaminsanahay maxay geed mouvement kama wada shaqayn karayna labadeenu aniga adig iskaba soo dhaaf qaraar kalete ummaddu gaadhay si anigayga dhan baa saa idhi markaas saa daraaddeed waxaan go-aansaday inaan magacayga iyo wejigayga baan ka nadiifsado maxay geed waxa ka soo socda waxaan anu mas-uul ka ahay maaha mas-uuliyaddana waxaan u dhigay iyadana saas ahayd waxaan anigu aaminsanahay iyaaban dee ummaddii tusayn haddaan maaragtay aan diyaar u ahay ma garanaysaa inaan dowlad hor fadhiisto waxay ka dhigan tahay waxaan aaminsanahay anigayga dhan buu laka wasiisaan shaki ugu jiraa bay ka dhigan tahay markaa macnahaan ma aaminsani mana aamini doono sidaa daraaddeed yaan xilkayga u dhigay aan meeshana uga soo baxay anigu shakhsiyaddaydu maanta barantarin waxaan arkayaa qoraalkii fahmi maxamed cumar baa mas-uulka ah madaxweyne haddii la yidhahdana kaa waxa meeshaa ka soo baxa dadka lagu aflagaadeeyo dhibaatooyinka lagaga geysto bageka oo dhan waxaa ka mas-uula maanta fahmi maxamed cumar walaa shaksiga lagu eryado walaa maaragtay kitaabkii doontaba ha lagu rogay mas-uuliyaddeeda oo totaliya waxa iskale maxaa la yidhahda fahmi maxamed cumar annaku nadiif baan ka nahay waa hadday ani tahay hadday faahiyo tahay iyo hadday kay doontaba tahay mouvement dhan nadiif baan ka nahay annaku wixii mouvement dhan ka soo baxay oo dhan anigu ku jiraba nadiif baan ka nahay marka waxa weeye ninka walaalkeena isagana marnaba de kolley intaas sanaan asxaabna ahayn soona wada halgamaynay hadduu aaminsan yahay wada fadhiisiga dowladda amba maaragtay la xaaltanka dowladdu waxbay dhalinaysaa waxaan xasuusinayaa fahmi maxamed cumar inta saxiix ay dowladdu ay la soo gashay mucaarid hadday baartiya tahay hadday usantiiba tahayba kay doontaba ahaato mid ay fuliyeen oo ilaa hadda ay wax ka dhaliyeen ma jiraa wey khalad maaha dowladda in lala fadhiisto marnaba ku odhan maayo fikirkaaga waa fikir xun amba maaragtay de si uu khaldan yahay amba dee nacam dee laguma xumayn karo qof walba fikirkiisa sidaas kale shaksiyadda insaanka waa inaad qof walba wixiisa maskaxdiisa u daysid se waxa weeye xasuus unbay iga tahay tani mucaarad ahaan inta waxyaaray amba inta jaaray maaragtay soo wada galeen wada hadal ay wax kala saxeexdeen marka isagana waxaan leenahay anaku waxaan leenahay dee jidka allaha maaragtay kuu fadiyo ka aad qaadanaysidba waa ku adi mas-uuliyaddiisa ay ku saaran tahay baashkii maanta adaa ka mas-uula adaa ka madaxa de wixii meesha ka soo baxana inkasta horta oo weliba anaa ma sii dhexgeli maayo se dacwado gaara yaa ii yimiday oon iyakana insha allah maaragtay aan dib u si maaragtay dhegeysan doono insha allah dacwado gaara se raison aan hadda nii leeyahay wey amba raison aan maanta nii hor fadhiyo wey ya wixii hore u soo dhacay amba wixii baashka la soo dhigay amba wixii de dambiye ka yimidaba kullu maanta ahaan mas-uuliyaddeeda papa waxa iskale maxaa la yidhahday ninka maanta walaalkeeda bas haynay yalla horta kacaga meesha yalla asiya lisma go waxa weeye mas-uuliyad walaalkay saaran weeyaan siduu u rogrogayo amba siduu u sii wadayo waa mas-uuliyad isaga saaran weeye to annakana saaran maaha haddii ay dhacday
de toute façon horta shakhsiyadaydu anoo warsamaha marnaba anoo maxaa la yidhahdaa nacabdi qof shakhsi ahaan amba dee meel ahaan mala yacni iskama maagin dhibka ummadda lagu hayo iyo dadka iyo dalka lagu hayo daraaddeed baan waxyaalaha aan badi 99% waxaa dee khalad way dhici kartaa malaa'ig ma yihi 99% waxa aan ka hadlay oo dhan bilniya ay aniga ahay wax aan marnaba aan ka noqonayo oon odhanayo maaha cafiya musaamax se haddii inaaba insaan baan ma garanaysaayo wax dee khalad dee piista khalada lay tuuro aan muuska ku silbaday asiya yalla oon muuska aan ku silbaday insaan baan ahay waxa weeye cafiya musaamax baan leeyahay life baan kuliga u leeyahay anu waxaan khabaynaya maaha qof haddaan ku gefay oo aan maaragtay waxa dee nacam beena amba khalada aan ka yidhi oon shakhsiyaddiisa gaar ahaan aan weliba ku gefay waxaan leeyahay cafiya musaamax wallahi waana iga dacad waxa weeye waxaan anagu wadnay shalay waxaan anagu shalay aaminsanay maantana waan aaminsannahay inkastoon maaragtay samir aan wax badan soo eegnay wax la khabaynayaa iskeer hadda kadib waan soo samirnay in la samro uu insaan samro annagaa soo samir waxa weeye taan shalay ahaa amba magacaan shalay sitay maantana waan ahay wixii unan aan wadayna waan wadaa maanta lagamana yaabo dhibka ay dowladdaasina soo wada marisay iska daa shakhsiyadayda amba haddii dadkan la eego dhibka ay ummaddan dowladdan ay maaragtay dadka masaakiinta dalka ku nool ay marinaysa habeen dharaar kaa keliya taaba igu filanba xalay toolaan la hadlayay wiilaan saaxiiba nahay oo dalka dhex jooga wallaahi bilaahi carabka allah igu haddaan been sheegay wuxuu igu yidhi wax kale iska daa ay dowladdan inoo tartee waa maalin ciideed biyuhunu naga maqan yahay dadka maaragtay nuuca dowladnimo ku sheeganaya ee maxaa la daddan ku maamulaya ummadda saa u haya waxa weeye la heshiiskoogu amba la sheekaysigoogu amba la fadhaysigoogu waxa ay caddaynaysaa in anigu xigeysi yahay markaa maskaxiyan waana si daraan leeyahay waa sax waa la aamini karaa taa waa lagu dayi karaa taa waa iska dhici kartaa ideegu inuu ni dhaqaaqo on sait jamais man gunta xaqiiqatan waxa la og yahay inay tafiirtu yihiin dadkan maamulo dadka uu madax ka yahay ismaaciil cumar geelle gunta haddaanad ka xumayn waxa aad sameeyey dalka dhexdiisa lagu sameyn lagama sameeyeen shakhsiyaad iska dhaafe waxaa la tirtirayaa istuarkii dhanaa dalka jabuuti baa la tirtirayaa dhaqankii ay lahaayeen ummaddu baa la tirtirayaa wax kale shakhsiyadada iskaba dhaafba markaas annaga histuarna looga soo bilaabi rabaa 1999kii yaa kaa ogolaanaytaa markaa dowladda noocaasa la fadhaysigeegu wada sheekaysigeegu amba wax maaldhigashadeedu maxay kuugu tallaabaa ka horraysa anutaasaan aaminsanahay shakhsiyad marnaba horeyna umay soo dhicin haddana dhici mayso anoo noolna in la adeegsado ya waxa weeye haddaan wax u baahanahay alxamdulilah lixdii lixaad baa ii buuxo waan shaqaysan karaa kadalika inta kalete walaalahaya annaku aasa maxaa la yidhahdaa dee dad free oo maskaxdooda u friyaan nahay saa daraaddeed annagu taan aaminsan nahay marnaba annagu la gaban mayno شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا قدومي عيد مبارك بكل هذه طبعا ومد عيد مبارك الإسلام بالك استوجوجان. عيد مبارك سودو براد. على تذكر. الحمد لله بس برو. ها درك يا عم بابر ماشي صار وكلا فدي مركز. أنا عم بابر معلن. والله معلن. قدبك اسكاب براد أنا وأنا هو شايف بس أنا ما نقول العليا. هاي اسكابلان هاي كمودن معلن بانكور هذا. هاي قرحني. هاي فبدل بيجي كي بلا بدون تي وانا أقول
sima saafin adeerta qaal waa ku salaamaya waa ku soo dhukaraya ciid mubaarak baa kule war maxaad igu darsanaysaa iska daayo simano dadkan yar salaamaya horta waa ku dhegeysanay wax kaaga dara midna ma jirto kowdhe warsabow sax wixii baa adaa dhameeyey wixii baa adaa sheegay anu waxaan ku darayaan waxa weeye inaan xoojiyo hadalkaaga soo idhaahdo maxaa la idhahdaa de hadalka waan wadaynaa awalba waan hadlaynay ama halkan aan ka hadalno ama halkan aan ka hadalno ama meeshaan doona aan ka hadalnay kulli waan hadlayno oo ummadda reer Jabuuti waxaan gaadhsiinayna mogta sax waan gaadhsiinaynaa dee anu cidna ku talax tegi maayo cidna odhan maayo saasaa khaldanayd cidna saasaa khaldanayd laakiin waxaan aaminsanahay anu ilaa imika jidka saxdaa ku taaganay sax ilaa imika inaan jidka saxdaa ku taaganay baan aaminsanahay inaan wixii aan waday anigu shakhsiyan uu sax yahay baan aaminsanahay waxaan leeyahay ciddaa ku gafay horta waxaan leeyahay bal cafi musaamax dad badan baa dhacay ciddaan ku gafay waa beryo ciideed oo aad u farxad badan waxaan leeyahay caf iyo musaamax weliba qaasada dad badan oo reer Jabuutiya haddaad wax ogaa gafiga tirsanaysa waxaan leeyahay caf iyo musaamax beryo badan leh laakiin dagaalka waan wadaynaa annagu de ilaahay baa la dilaya dagaalka waan wadaynaa ilaa inta laga guuleysanayo insha allah ilaa inta laga guuleysanayo waan wadaynaa insha allah arrintan marka madaxweynuhu waa aad bay kaaga dhan tahay faayo barkad aan soo salaamayna daray horta maaday tuuray waan iloobay bisaanay tuuray okay alaykum salaam waraxmatullah waxa weeye arrinku intaas ku dhan yahay annagu shalay wada saan u noolayn kuma maanta u noolahay shalayba dikraha aan la soo fadhiisanayna facebooka kiina waan la joognaa waxa weeye illa wax nalaga hor jooga maaha waan la ogaadaa fiican dawladda dhibaatada aan ka sheegaynay xumaha aan ka sheegaynay kiina waan wadaynaa waxaan de ku doorsanaynaa iska yarba waxa weeye wuxuu hadduu kaa go-an yahay iyo hadduuna kaa go-nayn volume war volumekii makii baa igala tegey hadda may maqlaysiin ilaahay yaqaana ما فيش فوليوم يلا عيد مبارك عيد مبارك باركي واي جاتي فوليوم كي حسن هذا إلهي يقال المهم تلفها بالقراءة يا هذا ولي من مغلسين رفايا هو حصلت واحد نراك عيد بريا عيد ما تقولين فلان يا ولا يوم غير ها يا ما يده فولين الله يرحم عفوفه كل ده التليفون والله ما قرنا يا عفوف في التليفون كنت تقول قرنا ها استغفر الله فهي غاتي اوكي او كسو نقونيا ديرتور هاي يلا ديرتور on soo noqon